بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مقعد واحد أبو بكر محمد نور. generally أما جودهان بأقوى عافماتك ما medicine كلا علاقة أي علاقة قاعدة. قيب واحد هذا clinical medicine. وحكم إذا nurse كي يو وهاي midwives كي يو general practitioners كي يو dentalists كي يو any other specialization in medical. قيبنا واحد يقانا preventive medicine. oo inta badan iyada waxa lagu bartaa sidii looga hortagi lahaa xanuunka intaanu dhicin marka biomedical science-ku ama biomedical scientist-ku ama medical lab scientist-ku waa qayb kamid ah clinical medicine-ka oo ah exactly cilmiga lagu daweynayo xanuunka muxuu ahaayay lagu helayo maarada marka biomedical scientist-ku qofka baranaya ama biomedical science qofka baranaya inta badan waxa loo train gareeyaa inuu barto xanuunada iyo xanuunada sida loo daweeyo iyo xanuunada sida loo baaro ayaa inta badan la baraa sida loo baaro iyo waliba qalabkii lagu baari lahaa xanuunadaas qofka ku dhacaya oo inta badan fara badan qalabkaas wuxuu isugu jiri karayaa kuwii hore kuwa dhaxaya kuwa casriga ah oo instrumentskaas casriga wala baraya ardayga ama qofka baranaya si markaas uu ugu shaqeeyo baahida u weyn ee taala wadanka ee xagga biomedical scientist ah ma soo koobi karno by the way not only biomedical science laakiin baahida caafimaadku kaliya ma soo koobi karno tan biomedical science-kiina way ka sii xaq jirtaa tusaale ahaan oo kale waxay yiraahdaan qoladan health statistics inta badan ku shaqeysaa Afrika inta ka hooseysa saxaraha 4 million healthcare professionals ayaa loo baahan yahay ama 4 million oo shaqaale caafimaad baa looga baahan yahay marka la isbarbar dhigo tusaale ahaan oo kale dadka ku nool wadamada saxaraha ka hooseeya iyo waliba tirada mihnadlayaasha caafimaadka ee ku nool saxaraha hoostiisa ayaa aad u kala badan marka wax weyn baahida loo qabo biomedical science-kuna waa mid kamid ah kuwa aan sheegaynay ee mihnadlayaasha caafimaadka ku jirta tusaale kooban hadaan siiyo isbitaalladeena ama goobaha caafimaadka wadanka waxa lagu deeqaa agab caafimaad ama qalab caafimaad oo aad lacag badan oo qiimo badan la soo siiyay kuwaasoo aan lahaynin dadkii ka shaqeyn lahaa marka waxa weeyaan baahidiisu waxay naga filan baahida loo qabo biomedical scientist-ka ama qofka biomedical-ka garanaya qalabka yar ee wadanka la keenay ee aan lahaynin qofkii dayactir lahaa ama ku shaqeyn lahaa si fiican ugu shaqeyn lahaa marka baahida muxuu ahaay biomedical scientist-ku waa ka criteria-da amaba marka la soo xulay ardayga ee leeyahay qofkan wuxuu baran doonaa ama baranaya biomedical science ama biomedical scientist buu noqon doonaa hadhow criteria-da lagu soo xulay waxa weeyaan number 1 inuu qofku uu ku yahay profession ama uu qofku ku yahay aad u garanayo aqoonta science-ka chemistry and biology iyo the mathematics iyo physics uu si fiican u garanayo oo kuwaas waxa uu noqonayaan salbe u noqonayaan markaas inuu qofku uu barto instrumentskii iyo baaritaankii iyo xanuunadii uu si fiican u barto way ujeedada laga leeyahay biomedical science-ka in aan ardayga la baro biomedical science kaliya ma aha in tusaale ahaan oo kale qalabkan bay barto laakiin waxa weyn inuu qalabkiina barto dadkiina ugu shaqeeyo oo buuxiyo baahidii bulshada ee aynu qabnay u buuxiyo oo qofkaas uu noqdo qof healthcare professionals-ka ku biira ama healthcare professionals ama shaqaale caafimaad ama mihnadle caafimaad u noqdo taas waa taa takleen doolayo inaan iftiimiyo maanta waxa weeyaan muhmal badan baa ku jira muhmal aad iyo aad u badan baa ku jira waxa la yiraahdo biomedical science-ka oo dad badan baan garanaynba ama ku jahawareeray qofkani hadhow toona markuu jaamacadda ka qalin jabiyo wuxuu noqonayo basically laakiin tan doonaya maanta inaan iftiimiyo waxa weeyaan maadaama oo fiilkan biomedical science uu yahay fiilal kamid ah fiilasha koraya ee caafimaadka
maalinba maalinta ka dambaysa aqoontiisa la sii baranayo la sii muxuu ahaa casriyeynayo waxa weeyaan ma dhamaad ma laha shaqadiisu qofka ka soo baxa ama barta kulliyadda biomedical science ama biomedical scientist noqda inta badan wuxuu ka shaqeyn karayaa isbitaalada tusaale ahaan isagoo oo ka shaqeyn karaya departmentska uu leeyahay lab isbitaalkaas mar wuxuu noqon karayaa lab in charge oo qofka labka ba leh ama haysta ayuu noqonayaa labka gudihiisa wuxuu ka sii shaqeyn karayaa departments of microbiology inuu baaro xanuunada qofka ku dhaca iyo sida xanuunka sida dawadu ay u daweynayso ama ay u baabiinayso xanuunka waxa loo yaqaan culture-ka u barto oo ka shaqeeyo sidoo kale wuxuu ka shaqeyn karayaa qaybta in dadka dhiigga loogu shubo ama dadka dhiigga loogu deeqo loo yaqaan blood bank ayuu ka shaqeyn karayaa sidoo kale wuxuu ka shaqeyn karayaa qaybta loo yaqaan clinical chemistry oo ah in uu qofka biomedical lab scientist ahi uu baari karo shaqooyinka xubnaha muhiimka jirka ay u hayaan oo kale sida kaliyaha iyo beerka iyo waliba dheecaamada jirka oo aad u baari karo sidoo kale qofku wuxuu ka shaqeyn karayaa meelaha lagu baaro kansarka isbitaalka muxuu ahaa labka ku jira inuu baaro muxuu ahaa kansarka qaybta loo yaqaan cytology histology and pathology center sidoo kale wuxuu qofku baari karayaa xanuun kasta oo jirka bini'aadamka ku dhaca taas waa isbitaalkii oo kaliya wuxuu ka shaqeyn karayaa jaamacadaha laftarkooda jaamacad kasta way ognaayoo inagu wadankan waa wadan soo koraya laakiin waxa jira jaamacadaha dunida waxa jira wax loo yaqaan university research center oo ah meel ay jaamacadu leedahay oo inta badan lagu barto ama lagu sameeyo daraasado caalami ah ama maxalli ah meelahaas oo kale ka shaqeyn karaya wuxuu ka shaqeyn karayaa pharmaceutical companies meelahan ama muxuu ahaayeen shirkadaha waaweyn ee dawooyinka wuxuu ka shaqeyn karayaa sidoo kale biotechnology ayuu ka shaqeyn karayaa marka waxaan garan karnaa in wuxuu noqon karayaa academic field ku biiri karayaa cilmigii soo bartay uu sii gudbin karayaa marka waxaan garan karnaa basically inaan shaqadan biomedical science-ku aanay dhammaad lahayn oo intaa iyo in ka badan uu qaban karo laakiin tayniga noo muhiimsan waxa weeye inaynu ogaano muhiimadda uu noo leeyahay inaga oo ah inuu noo bixiyo gaab wadankeena ka jira oo ah inayna hayninba dadkii ku shaqeyn lahaa tooliska aynu hayno taasina waxa weeyaan markuu ardaygu soo baxo wuxuu qaban lahaa taa u dambaysa waxa weeyaan sidoo kale waxaa ka jira jahawareer baa ka jira qofku markuu biomedical science soo barto ee uu graduate noqdo muxuu hadhow toole kusii takhasusi karayaa hadduu israado aqoontiisa sii kordhiso haddii qofku markaasi uu biomedical scientist soo bartay wuxuu baran karayaa fiilasha kale ee science wuxuu baran karayaa health service management wuxuu noqonayaa health service managerska ayuu noqonayaa wadanku leeyahay ee adeegyada caafimaadka maamula ayuu ka mid noqon karayaa inuu sii barto qofku wuxuu baran karayaa wax loo yaqaano masterskiisa wuxuu ku samayn karayaa masters of science in public health specifically epidemiology health education and promotions and demography intaba uu ku samayn karayaa sidoo kale specializationkiisa wuxuu kusii samayn karayaa reproductive health inuu barto caafimaadka taranka taasna uu ku samayn karayaa sidoo kale wuxuu ku samayn karayaa global health inuu barto masters of science in global health sidoo kale wuxuu ku samayn karayaa any kind of masters in science marka laga reebo internal medicine uu inta badan uu ku samayn karayaa inta kale oo dhan taasina waa taa haddaba si aad baahida wadanka ka jirta ee ballaaran ama qaaradda ka jirta ee ballaaran aad uga qayb qaadato oo u noqoto xalalka la raadinayo kamida waxaad si yaro fudud aad u baran kartaa biomedical science-ka aad uga baran kartaa jaamacadaha wadankeena biomedical science-ka information-kiisina waa intaa wanaagsantahay